وحرمنا إن لو ذا نص صغير لبناء والمير أو لبناء أو مارتي إلهي وطبعا حنون أوكياني وحكستو إلهي أوكياننا خير إيا شربة مروا البوحة ويقفك إنه آمن ومهم ذاتك رأينا وحسد قيستان ذاتك كحنون سنيهي أي سسومي كرين حتى ورهو إن قف صومنا يأفوريان سيدي أهيد با مارتي شرعة نو أقرأ قفك دو سومي وإنو بحيو وسمفله وريه فرحان فارح عبدي oo degmada Jariban lagu guddoonsiiyay abaalmarin uu ku mutaystay waxqabadyadii kala duwanaa ee uu qabtay muddadii uu shaqaynayay wariye farxaan waa guddoomiyaha warbaahinta degmada Jariban agaasimaha radio Jariban mulkiilaha Deex TV oo ah wakaalad u adeegta bulshada sawir qaadaha dekada Garacad iyo waliba xilal kala duwan oo qoyska dhexdiisa uu ka hayo xaflad lagu abaalmarinayo ayaa dhawaan waxay ka dhacday degmada Jariban ee gobolka Mudug maamulka degmada Jariban taliska saldhigga booliska qurba joog ururka dhalinyarada degmada wasaaradda haweenka ee Puntland nabadoono iyo haldoor kala duwan ayaa ka qayb galay xafladii lagu guddoonsiinayay abaalmarintan wariye farxaan faarax cabdi waxaan rabaa wax yar xafladan inaan faahfaahin yar ka bixiyo xafladan uu isugu yimid maamulkii dhalinyaradii hooyooyinkii bulshada qaybaheeda kala duwan nabadoonadii dawladdii haldoorkii degmada waxaa soo qaban qaabiyey dhalinyarada degmada Jariban oo ugu talagalay walaalkeen samafale farxaan faarax cabdi oo aan ognahay runtii degmada inuu yahay nin dhalinyaro oo lafdhabar u ah arrimaha bulshada markii la yiraahdo soo gudbinta bilicda deegaanka caawinta dadka masaakiinta ah oo xanuunsan waa dhif iyo naadir in la helo qof muwaadin ah oo dalkiisa dadkiisa u shaqeynaya runtii waxa ugu maqaalaa in raggii xilliga la bilaabay oo gudoomiye 13 kan 12 bayaan wadaagsin in lagu abaalmariyay hal saami iyo bar asagina aan la xusin waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku leeyahay in waxa weeyaan farxaan inta uu qabtay ilaahay baa u abaalgudi kara laakiin in waxa weeyaan dadkaas 12 in inta ay heleen kama uu shaqeeyeen uu ka shaqo badnaa waa dhigi karaa abwaan kaariye ayaan waxaan dhageystay intuu noolaa Allah u naxariistee erayow nugula dardaarmay wuxuu yiri hadhow markaan inta ay amaana lahaydeen 20 Allah ka boqolkiiba 20 intaan noolahay si aan ku noolaade markuu dhinto inaynu niraano wallahi tiir buu ahaa wax shaqeynaysa ma waxaanu rabnaa inaynu niraano thank you waxaanu niraano inaynu garanno qofka muhiimka ah ee bulshada ka soo dhex baxay wax inoo qabtay runtii waa la amaanay anagu amaantiisa reer Soomaaliya iyo reer Puntland kaliya maahan waa mid international oo adduunka laga fiirsado telefishinka Deex TV bulsho iyo dhalinyaro sida ugu garateen farxaan inuu yahay maanta haldoorka degmada yahay samafalaha degmada uu yahay qofka kali ee deegaankan markii la fiiriyo 90% dadka baahiyahooda soo gudbiya isha daran dadka xanuunsan kuwa xilliyada abaarta xilli kasta loo baxsado la dhowr farxaan maalinta dib timaado ama xaalad adag la arko farxaan la xasuusto maalinta barwaaqada iyo nabadda lagu jiraan farxaan waa lagu xasuusanayaa waxaana leenahay waa mahadsantihiin intiinan ka soo qayb gashayna waxaad noo cadayseen in maanta madaxdii degmadan ay wada joogaan kurtina waxa loogu yimid ay tahay in farxaan uu yahay door muhiim markaana waxa la qabsanay qofku markuu dhinto in loo macaliyo la sheego laakiin intii farxaan iyo dhalinyarada maanta caaw xustay waxay muujiyeen in qofka waxa qabadkiisa lagu abaalmariyo marka runtii farxaan ana waxaan ku xustaa oo kale runtii uu qabtay dadka aan iska warqabin dadka xanuunsan dad badan oo hadda maxaa alfarax oo kamid ah oo kala xasuusto caaway meeshii faa ku jira la xanaaneeyo dadka tusay waa dadkan waa u baahan iyo kumanaan qof oo kale oo aan hadda sheegin mar haddaan soo koobi karin waxaan leenahay ilaahay ka abaal mariyo waxa aad qabatay waxaan leeyahay dhalinyaro waxaan ku habboonaa baa qabateen qofkuna waxa
asagoo ku habboonaa hadduu intuu garto qabto waa shukri calaa waajib haddana saasoo ay tahay wayna kaga mahad celinayaa aad ay u mahadsantihiin farxaan faarax ayaa xafladda loo qabtay farxaan soo dhawow waa ku soo dhaweynahayaa aadaan u mahadsanta qofku sidiisana ninka haddii ammaanta laga badiyo dhibteeday leedahay marka inaan xoogaa ka yareeyo weeye waxaan caawa soo garanay inaan farxaan oo nin dhalinyaro ah oo degmada Jariiban haddaan dhahno caawa waxqabadkiisa inta qof oo meesha soo istaagtayba ay ka wada hadasheen mid loo sheegi karin anigu mahad celinayno horta waxa ilaahay mahadiisa in horta qofku wuxuu uu qabtay loo og yahay waxaan u malaynayaa waxaan isugu imaanay macadku oo la jiray gaalkacyo oo deex la dhihi jiray oo dhalinyaro deegaanka degmada Jariiban ka soo jeedo bariga mudug wax lagu bari jiray si lacag la'aan oo free wax lagu bari jiray farxaan halkaas aan isku wareysanay halkaas wuxuu ii sheegay in maaragtay anoo kamida macallimiintii markaa meesha wax ka dhigaysay macalinka ugu da'da yarna aha markaasi halkaasi marka waa is wareysanay maadaan ka dhigi jiray caafimaadka iskoolkaasi farxaan markaa is wareysan wuxuu ii sheegay waqtigaasi in waqti taariikhda hadda aan sheegaynin inuu ka soo baxay macad boose ku yaalo oo maaragtay uu shaqaale caafimaad yahay markaa is wareysanay farxaan waa uu tagay kadibna si abaalmarina oo shakhsiyana wuxuu igu soo dhiibay buug meesha laga dhigi lahaa oo caafimaad ah farxaan iyo samafalka runtii dad badan oo maantay ku nool degmada Jariiban iyo meelo ka baxsanba ayaa farxaan codkiisa iyo taladiisa iyo enerjigiisa xaalado adag iyo duruuf isku sugan bay gaartay waxaa leenahay adduun iyo aakhiraba ilaahay ajarkeeda ha siiyo in badan oo dhalinyarada inay ku dayata ay u baahan yihiin farxaan iyo maxaan ku iraahdaa iyo maamulka degmada Jariiban markii aan gudoomiyihiisa aan noqday farxaan wuxuu la bilaabay xalinta khilaafaadka iyo isku soo jeedka maamulka dhexdiisa cabdi khayr maxamed jamac Puntland TV degmada Jariiban ee gobolka Mudug